Sadani waxay ka dhacday wadamada Carabta. Ninbaa wuxuu yidhi aniga oo lugaynaya meel jida socda ayaa waxaan arkay nin bir buu samaynayaa. Birta dabka ayuu gelinayaa, kadibna birtu markay caddaato gacantiisa ayuu dhimbeela kaga daadinayaa. Birtii kulul oo caddaatay ayuu gacantiisa ku hayaa. Waxaynu naqaanaa qofku marka uu bir garaacayo amba uu laabayo uu dabka gelinayo inuu iskaga qabto maro. Isagu laakiin birtii caddaatay ayuu haddana gacantiisa u rabaa inuu ku laabo. Ninka wuxuu yidhi fajacii ama kaag bay igu noqotay ninkan aan dabka ku gubanaynin. Xoogaa baan iska daawaday, cabbaar baan daawaday. Intaa kadibna xaggii ninka ayaan u soo dhaqaaqay anigoo yaaban. Ninkii baan salaamay, salaantii biga qaaday. Waxaan ku yidhi niyow xaggaad degan tahay? Wuxuu ii sheegay inuu magaalada degan yahay. Kadib waan u fiirsaday, waxaan arkay ninkan inaan dabka waxba yeelaynin, waayo imika waan la fadhiyaa oo si layfa ayaan ula fadhiyaa. Waxaan arkay in dabka caadiga iyo dhagaxa caadigii ay isugu mid yihiin, isku sina uu qaadayo. Waxaan ku yidhi waxaanaad shidaysaa miyaanu ahayn dab? Wuxuu yidhi maya waa dab oo adiguba waa adiga indhahaaga ku arka. Nolol maalmeedkayga ayaan kala soo baxaa dabka iyo birta. Waxa uu yidhi inta uu ii sheekaynayo gacmihiisa dabka ayuu kula jiraa oo ku wadwadaya. Inagu sidaynu naqaano qofka bini'aadamkii markuu dabka shidaayo waa uu ka fogaadaa. Waxa uu doontaa biro dhaadheer amba qoryo dhaadheer uu dabka isku raaciyo. Laakiin tan waxay ahayd mid ugu cusub aanan weligay arag. Waxa uu yidhi ninkaasi dabka uu shidaayo anigoo ka fog ayuu haddana halkayga diirinaya. Wuxuu yidhi intaa kadib aniga shaki ayaa igu abuurmay oo waxaan yidhi ninkani nin caadiya ma aha. Ninkii markuu arkay inaan anigu yaabanay wuxuu igu yidhi qof yaaban ayaad eegtay ee maxaad aragtay ii waran. Wuxuu yidhi anna maan jeclaysan inaan markiiba weydiiyo su'aashan fajaca iyo yaabka igu noqotay, laakiin isaga ayaa markiiba indhahayga wuxuu ka dareemay inaan la yaabanahay waxyaabahan uu samaynayo. Waxaanu igu yidhi ma waxaad la yaaban tahay dabkan faraha kula jiro in waxba yeelaynin? Aniguna sidii aan rabay bay haydo waxaan ku yidhi hayo niyow arrintan ayaan la yaabay ee bal wax iga sheeg. Wuxuu yidhi waa qiso, ma kuu warramaa oo wax ma kaaga sheegaa arrintani siday aan ku helay? Waxaan ku yidhi haa ee bal wax iga sheeg saaxiibow. Waxa uu yidhi meherad ayaan ku haysan jiray magaaladan. Aniga wuxuu yidhi meheradayda iska haysta ayaa maalintii dambe waxay timi inaan aad iyo aad qurux badan. Way isalaantay, salaantii baan ka qaaday. Waxay igu tidhi walaali caawi, qof baahan ayaan ahay, Allah ku caawiye. Wuxuu yidhi la yaab iyo ama kaag bay igu noqotay inanta sidan quruxda badan ee haddana baahan. Niyadaydina waxay sheegtay waxyaabo fara badan oo shaydaan ayaa qofka bini'aadamka markasta ku lamaan. Isla markiibana dareen ayaa galay oo waxaan u baahday iyada. Kadibna waxaan u sheegay wixii niyadeyda ku jirtay ayuu yidhi oo ahaa inaan xumaan wada samayno. Waxaana igu tidhi waayo hadday sidaa tahay waan ogolahay ee horta xoogaa ii sii dhiib, carruurtaydii ayaa gaajaysan si aan ugu sii siiyo waxay cunaan. Kadibna waxaan ku yidhi waayahay ballan ayaanu galay, waxbaan u sii dhiibay, carruurtii bay wax u iibisay. Markii ay soo siisay inantii way igu soo noqotay, sababtoo ah ballantana dhex taalay ayaan ahayn ballan ciyaar. Wuxuu yidhi meheradaydii baan xidhay, annagii inantiina waan israacnay. Waxaanu tagnay gurigayga oo magaalada ku yaalla, aniga oo niyadeyda ku jirto caawa inaan haysto fursad aan abid isoo marin. Intaa kadib labadayaduba waanu diyaar garownay, waxaanaanu isu diyaarinay inaan xumaantii wada samayno. Iyadu waxay ahayd qof wanaagsan oo Ilaahay ka baqa oo tukata. Wuxuu yidhi qolkii baan u galay, albaabkaan xidhay. Waxay igu tidhi albaabka sababtaad u xidhaysaa maxay tahay? Kadib waxaan ku yidhi waxayna arkaya bini'aadamka iyo dadka ayayna arkaya. Waxaanan ka cabsanayaa inay hadhow ay ceebaystaan amba inay ceebaystaan ay yidhaahdaan ninkii hebel ayaa xumaan samaynayay. Kadib waxay igu tidhi adigu dadka ayaad ka baqataa oo Ilaahay sameeyey, Ilaahay sameeyeyna kama baqaysid. Waxaan idhi Ilaahay waa dambi dhaafe, Ilaahay dambiyadoo dhan buu dhaafaa, Ilaahay waxba inagu qaban maayo. Kadib haddaba markii uu yidhi hawsha bilow ayaa waxuu arkay inantii oo indhaheeda ay ilma ka socoto. Waxaan ku yidhi maxaa kugu dhacay? Caawa inoo fursadaynu ka faa'iidaysanno, cidina lama joogto.
waxay igu tidhi waa run cidina lama joogto laakiin ilaahay baa inala jira oo ina arka ilaahay cadaabtiisa xaggee baynu ka gelaynaa. waxau yidhi intaa kadib waa naxay dub ayaan u booday anigoo qiirooday ilaahayna xasuustay ciqaabtiisa inay jirto. wuxuu yidhi iyaduna way faraxday waxay tidhi ilaahay cadaabta adduun iyo ta aakhiro labadaba ha kaa nabadgeliyo. anna waxaan ku yidhi buu yidhi adduunyadii aad i weydiisatay iyo afarlaabkeedba waan ku siinayaa, macnaha lacagtii aad i weydiisatay caawinta ahayd afarlaabkeed baan ku siinayaa. iyaduna aad iyo aad bay ugu mahadcelisay iyadoo ducadaasi qiimaha leh ugu ducaysay. wuxuu yidhi habeenkii dambe anigoo hurda gurigayga oo iska hurda ayaa waxaan arkay riyo aad iyo aad u layaab badan. riyadaasoo ahayd wuxuu yidhi anigoo hurda gurigayga ayaa waxay timi buu yidhi qof dumar ah ayaa igu timi, manaan bay igu timi. waxay igu tidhi ilaahay subxaana wa tacaala cadaabtii adduunyo wuu ka nabadgeliyey oo wax cadaaboo adduun arki maysid. kadib anigu muddaa ka soo wareegtay, waqtiguu isbedelay, waxaan furtay meel biraha lagu sameeyo. kadib waxaan arkay dabkii ooni damqaynin. kadib waxaan ogaaday buu yidhi berigii wixii aan sameeyey ee ka noqoshadii aan ka noqday arrintii foosha xumayd, ducadii inantii ducaysay in la aqbalo. ilaahay subxaana wa tacaala waxaana ka rajaynayaa cadaabka aakhirana inuu iga badbaadiyo. intan aad arkaysid aad la yaaban tahay aad maanta igula yaabtayna halkaas ayay ka soo jeedaa ayuu ku yidhi.